Aabbahay gabadhiisa curda ahay markastana ku hamin weynaa inaan is aragno oo jeclaa inaan arko doo nool yahay doo dhintana Ilaahay u naxariisto laakiin waxa jeclaa inaan arko aabbahay gabadhan Soomaaliyeed waxa ka maqan oo ay baadigoobaysaa waa aabaheed waana dareemi kartiin gabar Soomaaliyeed oo aabaheed baadigoobayso isla markaana tiri aniga waa guursaday ilaa ka madax banaan ahay waxaan ku hamin weynahay aabahay inaan helo iyo duruufta aabaheed uu ku maqan yahay ee xanuunjinayso ayaan rabaa inaan idinla wadaago balse marka hore aan garab istaagno muuqaalka u sheer garayno meelo badan aan u gaarsiino السلام الله عليكم صاحبي السود وهذا ومركل إبراهيم شيني بافنتا بعد جوبكم مدة الصومالية دي الانتر أنا جو عبد العزري مقال كان ومتكلة وسامينتي سنة صاحب هذا أنا جعلنا هاي وأنت مقال بدها نقول واحد قاعد سنة يعني نوصل بيرتان فيسبوك بيج كنا فلو إلى نوترا يوتيوب كسبسكرايب ترادان إسلام مركانا هذا مقال كان ملا بدن جالسان سودو ولا شيء مركور مقع عقود مسترن يديان كان يصوب بقتي isbitaalka xamar waxa jooga dhakhtar ajnabi ah oo ka daaweyn doona cudurrada keena dhalmo la'aanta ragga xanuunada ku dhaca xaniyaha galaha iyo xanuun aad ka dareentid qinjirka borostatada ragga biyo baxa degdega kacsi la'aanta tayada shahwada oo daciifta xubinta taranka oo jilicda isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan ama ka soo horjeedka isbitaalka xooga wixii faahfaahin nambarada hoos ku qoran wiila uu karweeli jimcaale wiila abuukar wehliyo jimcaale wiila waxa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoob umad Soomaalida elintir yaa ka maqan oo aad baadigoobaysay aabbahay aabaha inta diganta adiga yaaqshid adiganta aabaha marka la magaciisa nagu celi wiila uu karweeli jimcaale abuukar wehliyo jimcaale aabaha muxuu ka shaqayn jiray والله مش قادرة نركب بحاي سعودي ومرتكي واكسو نقي مركا لوادا لقوي aabaha Sacuudi waaday sidoo u baxay qaab ku baxay Allah يعني ماشي سيدي ناقة يجوكتي الماء يجوكو انتنا الماء انيقو آباء هويدودا انت اتقنيت مركو حوري انا حقا هذا هلي اوغادا مركا سحان الله انت اسكاك شقيس انت جوك مركا سويرو مايا انا حقا هذا هلي ودعيو ساسو كبحي ساسان لواي markaas kadib maxaa dhacay markaas ka bacdi ma la baafinin oo dagaali waxa si diyaa jiray ma la baafinin qof kasta hortiisa uu sii haybo waayahay aabaha markuu baxayay hooyada ma wada joogeen ma wada joogin ana caloosh ku jira kala tageen aabaha ma aragtay oo ma qoonsan kartaa 10 jir ana ugu dambeeyay Suleymaan iid ee tahay hadda ma qasay adiga 26 sano aabaha ma qasay maqan yahay 16 sano maqan yahay 16 sano maqan yahay ma guursaday adiga xasmata ma hadda mihi gabadha ii joogta laakiin waayahay aabaha ma qacarro dhala oo ka maqan yahay hadda oo aad taqaana afara ahaan hala naga dhintay misla ogtihiin marka aaba ina baafin u sameysaan oo ma ka wada hadasheen oo aad baadi goobtaan ana ugu weyn waa ka wada hadalnay wiila iga yar waa joogyaa gabadha kalena waa maqantaanaan ugu weyn aabay wuxuu dhalay dhamaantiin waa isla wada ogtihiin marka isla wada ognahay waayahay aabaha Soomaaliya ka qabiilkiisa abgaal harta abgaal agoon yar buraal Muuse Caleer barqadle hooyadana waa isku mid kale qaraabo ahaayeen waayahay markii aaba la waayay kadib Sacuudiga dad badan oo helaa jiro dad taqaanina jiri karo dad ma la weydiiyay oo maxay idin ahayn والله أني قطع أقان ماشي مجوجة لكن ويلا ماشي كبرتي على أبا إيجا مقن إن أقرب يقصي ست أو إلى هذا ست واي هو إدهي أيانا وإلى هلا يورادينا كبعدين إنه تلفون إيجا مقاونين هي وح أخبار أو أبا لقى صور شيء مجرى أخبار لما مصور شيء هذا بحاينين إسراعين أو صون قضي أو ماذا أو دا أو كرويلي حدود أني أسوجرنا كصوتك كنيني وحو عنو سورادي أسدها كبعد أنا والي سوقبت والي سطر حيلا أصلا ميشا يقدم بيسي أصوجي فوجرا دينتا يا بحيا أو ميشا كتاقا يا مؤبي ما قدها سعودية مسوا أنت سفر كهين سفر كنتي هاين قدها مين قلن قدها ميسن قلن وايد هاي مدة أباها ومقيني هاي هدا وما قسم لحية تونسنا مقيان بها لحية تونسنا أباها ومقيني هو مدفق هدي أباها sida aad aaminsantahay Sacuudi uu joogo amba xiriirkiina uu lumay maxaa aabaha u sheegi lahayd oo ka codsan lahayd hawada marsiin lahayd
aabbahay gabadhiisa curdaa ahay markastana ku haman weynaa inaan is aragno oo jeclaa inaan arko hadduu nool yahay hadduu dhintana ilaah ha u naxariisto laakiin waxaa jeclaa inaan arko aabbahay. Ajaashahay. Dadka Soomaaliyeed ee dadka muuqaalada u sheer gareeyo ee meelo badan u gaarsiiyay barnaamijka Ilintir qaybka maxaa ka codsan lahayd? Waxaa inay ii sheer gareeyaan ee ila raadiyaan ee garab igu siiyaan walashooda ahay. Waayahay. Ma noo sheegi kartaa number telephone shaashada lagu qoro si dadku kaaga soo wacaan? ها شن سقاشن يلو سقاشن سديد لاتيشن Numberkaas aad wadataa. ها أنا Marka lagu celi فرا شن سقاشن يلو سقاشن سديد لاتنيشن aabaha wax sawir ma laga hayaa? ها waayahay sawirkaas shada saari doonaa waan ka qaadaynaa waxaan jeclaan lahayn in aabaha xog badan aad ka hesho wax kale oo aanu sheegayso oo baafinta ku daraysa ma jiro ماي mararka qaar waxaa dhacdo in dadku soo wacaan oo ay ku dhahaan aabaha meel hebelo jooga aabaha hebelo aabaha kan aabaha kaas lacag dhiib marka taasna ka taxadar إن شاء الله ya إن شاء الله دالين ما waa mahadsan tahay نظام ولك guud ahaan muuqaalka inta ayaan jeclaan inaan soo gabagabeeyo intaan dib u kulmayno waxaan ka tegayaa sidaas nabadgelyo waad ku mahadsan tahay daawashadaada